السلام عليكم عشر كينو ما أنت وحكو سابسين هاي وضع شيكيسي وحانا وضع شيكيسون دونا لبقوف conversation وضع شيكيسي what will you do محاد قبان لهيد what will you do محاد قبان لهيد when you finish markad دميتid learning English برشادة لغة إنجليزية wuxuu yidhi if I finish haddii aan dhammeeyo learning English barashada learning English language barashada luqadda ingiriisiga I shall be either laba midkoodun bay noqon lahayd inaan teacher inaan macallin noqdo or translator iyo inaan noqdo turjumaan what will you do maxaad qaban lahayd if you get haddii aad heshid a job shaqo with good salary mushahar wanaagsan leh if I got haddaan helo a job shaqo with good salary leh mushahar wanaagsan I shall save waan kaydsan lahaa my money lacagtayda because maxaa yeelay I want waxaan doonayaa to buy inaan iibsado a house guri to live si aan ugu noolaado and a car iyo gaari to go si aan ugu tago whenever meel kastoo I need aan u baahanahay what will happen maxaa dhici lahaa if Soomaaliya haddii Soomaaliya gets ay hesho a permanent peace nabad joogto ah permanent waa joogto and good government iyo dowlad wanaagsan wuxuu yidhi if Soomaaliya haddii ay Soomaaliya get ay hesho good government dowlad wanaagsan the Somali people dadka Soomaalidu will live happy waxay ku noolaan lahaayeen farxad and worry free life iyo nolol xor ka ah warwarka iyo nolol xor ka ah warwarka because maxaa yeelay Somali people dadka Soomaalidu have no confidence kalsooni kuma qabaan to their leaders hogaamiyaashooda ama madaxdooda Somali leaders hogaamiyaasha Soomaalidu have accustomed waxay caadaysteen to take inay qaataan mar walba corruption musuqmaasuq and nepotism iyo eex what will happen maxaa dhici lahaa if Soomaaliya haddii Soomaaliya try ay isku daydo to utilize inay soo saarato their natural resources khayraadkooga dabiiciga and stop ay joojiso Beijing dawarsiga other countries ay dawarsanayso ama ay tuugsanayso wadamada kale if Soomaaliya haddii Soomaaliya try ay isku daydo utilize ay la soo baxdo natural resources naturalkooga dabiiciga ah Soomaaliya khayraadkooga dabiiciga ah Soomaaliya will be member waxay xubin ka noqon lahayd will be member of developed nations waxay xubin ka noqon lahayd wadamada horumaray ayaa hadalkii soo gabagabay wuxuu yidhi thank you sir waad mahadsan tahay mudane b ayaa hadalkii soo khatimay you deserve brother adigaa mudan walaalkay you deserve brother adaa mudan walaalkay casharkeedii maanta intaasuu ku eegyahay intaan cashar kale oo kanoo kalaa ku kulmi doono maca salaama